السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان سوين أسلاميا كمانان كروح شرفتي قدرنتي جمدن كحرن كنال كان سعودال كدنيا. وحان إذن لي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة أما مانتا حلقة إذن تحبا وحان إذن كوسو تلقلي شيكوين عجيبة كدعي دنيا. جون وحو أها أرضي كميدا أرضيدا وحكبرتا جامعة هافارد. جون wuxuu leeyahay waxaa jiray macalinkeena Leo noo bixin jiray maadada xisaabta. Leo wuxuu soo xiran jiray saacada dumarka mar walba oo soo xaadiro xiisadana waynu ku qosli jirnay inagoona ogeyn sababta uu u soo xiranayo saacada dumarka ilaa uu daaha ka qaaday sirta ka dambayso xirashada saacadan. wuxuuna inoo sheegay inay saacadanu lahayd gabadhiisa oo geeriyootay ayna tahay xasuus aanan qalbigiisa ka tirmaynin. wuxuuna inoo raaciyay waxaa jira qalbiyaalo dareemayo xanuun aad u daran balse aanan hadli karaynin. gabadh bukaan ahayd oo isbitaalka ku sugnayd waxaa ka dhacay tin macmal ahayd oo madaxa u saarnayd. dabadeed waxaa ku qoslay dadkii wada joogay isbitaalka. markii laga reebo hal wiil oo dhalinyaro ah kaas oo saacidayay gabadhii oo ilmeynaysa kana xanuunsan hadallada iyo qosolka lagu yiri. gabadhii oo ilmeynaysa ayaa tiri ma ahan qalad aan anigu sameeyay balse tintayda waxaa baabi'iyay cudurka kansarka. dadow ka digtoonaada qaladaadka aad sameynaysaan marka aad caafimaadka qabtaan. wiil yar oo dhigta dugsiga hoose waxaa garaacay maamulaha iskuulka. aad ayuu u ilmeeyay wuxuuna aaday qabuuraha hooyadiis. wuxuuna ku yiri isagoo ilmeynayo hooyo maanta waa lay garaacay waana lay aflagaadeeyay. hooyo maamulaha iskuulka maanta wuu i garaacay wuuna i aflagaadeeyay. wuxuuna igu yiri hooyadaa way ku dayacday kumana jecla. adigana mar hore ayaad dhimatay oo ma nooli. waan ogahay inaad indhahaaga iga jeceshahay laakiin qadarta alle ayaa naftaada ku waayay. inkastoo dabciga insaanka laga waayin gefka haddana waxaa lagu kala duwan yahay xishoodka, wanaagga, ixtiraamka iyo iscafinta. waxaad arkaysaa shakhsiyaad badan hardanka nolosha loogu jiro ama noloshoodiiba ku waayay erey xanaf leh oo kaga yimid shakhsiyaad ama bulsho kale iyagoo aan u fiirsan culayska ama xanuunka uu dareemayo qofkaani. waxaan mar kale si weyn ugu mahadcelinayaa shakhsiyaadka ama kumanaanka kun ee ku xiran kanaalkan socdaalka dunida. waxaan idin leeyahay mahadsanidin.